السلام عليكم soo dhawaada saxaabadena YouTube daqiiqado yar gudahood waxaan arkaynaa in filimku uu ku bilowday naxdin David wuxuu dareen u qabaa saaxiibtiis Amalay laakiin waxay u muuqataa inay ku adag tahay inuu sheegto dareenkaas uu qabo Amalay dhanka kale waxaan arkaynaa David oo saaxiibadiis ay wada qaadanayaan waqti waxaanay isku dhow yihiin saaxiibkiis Koray halkaas oo ay si farxad leh u wada joogaan David ayaa kacay si uu qaato hawo balse waxa uu arkay saaxiibadiis Amalay oo joogta halkii uu marayay wayna isxaal wareysteen waxaanay u sheegtay inay hadda ka shaqeyso shirkad cusub Davidna uu u hambaliyay balse intii aysan u bixin xaafadeeda abaar waxay taagneed wadada si ay u raacdo gaari taxi ah David waxa uu u muuqdaa inuu xageeda ku soo cararay balse waxa uu soo bandhigay inay raacdo caawa oo ay la joogto gurigiisa Amalayna waxay isku dayday inay diido waxaanay u sheegtay David inay ku nooshahay meel ka baxsan magaalada gurigeedina uu ku yaalo meel aad u durugsan balse David waxa uu ku qanciyay inuu siinayo baabuur ay ku aado gurigeeda halka ay Amalay ugu dambeyn ay ka ogolaatay inay raacdo dhanka kale waxaan arkaynaa David oo saaxiibadiisa aad uga mashquulay waxaana uu ku wargeliyay saaxiibadiis inuu baxayo balse saaxiibkiis Koray ayaa u sheegay ma wadataa wax lacag ah oo aad ku raacdi taksiga waxaana uu ku dhahay haa wantaa sidoo kale waxaan arkaynaa in saaxiibkiis uu ka fakarayo lacag uu ku iibsado biise maadaama uu aad u jecel yahay biisaha balse ugu dambeyntii David iyo saaxiibkiis waxay istaageen ATM-ka gaarigana waxa ka soo degay Koray si uu lacagta uga soo saaro ATM-ka halka David iyo Amalay ay gaariga ay ku wada sheekaysanayaan waxaana gaariga ka soo wada baxay Amalay iyo David balse Koray waxa uu sheegay inuusan u shaqeynin ATM-ka waxaana uu sheegay inuu kaarkiisa u dhiibo si uu ugu shaqeeyo isla markiiba waxay kala baxeen lacagta balse banaanka waxa ay ku arkeen qof saa'id ay uga cabsadeen waxaanay cabaar ku nagaadeen qolka ATM-ka Amalayna waxay u jeedisay inay wacaan booliiska si ay naftooda u badbaadsadaan balse way ka diideen inay wacaan goobtana waxa joogay waardiye ah balse waa uu qayliyay balse waxa uu ku qayliyay tuugii banaanka joogay isla markiiba waxa soo gaaray goobta ninkii waardiyaha waxaana uu dhulka la dhacay tuugii rabay inuu dhaco David Amalay iyo Koray waxaanay la yaabeen waxa ka dhacay meesha Amalay ayaa aqoonsatay in teleefankeedii ay kaga timi gaariga David in gaarigiisa uu ku soo socdo nin wata dhar madow wuxuuna gadaal kala baxay sanduuq ku jira ugu dambeyntiina waxa uu aaday dhabarka ATM-ka David markan gaarigiisa waxa uu rabaa inaan laga kaxaysan balse Amalay ayaa u diiday inuu aado banaanka goobtuna waxay noqotay qabow saa'id ah waxaanay dhabti arkeen baabuurkooda oo lagala baxay alaab David markan waxa uu keenay maskax wuxuuna ATM-ka ka soo saaray lacag 500 ah balse saaxiibkiis kuma qanacsanayn inuu lacagtaas ka soo saaro kaarka David iyo Koray halka ay Amalay iska furtay dhagaheedii dahabka ah ee u xirnaa David waxa uu soo baxay banaanka waxaana uu lacagta siiyay ninkii tuuga ahaa si ay u badbaadsadaan naftooda David ayaa u sheegay inuu haysto lacag 500 oo kaliya waxaana uu ka bariyay inuu qaato lacagta ilaa uu u tuuray wuuna qaatay tuugii lacagta David waxa uu ku orday gaarigiisa waxaana uu rabaa inuu istaaro balse waxa uu raadinayaa teleefanka Amalay daaqadana waxa ka soo weeraray ninkii tuugaha tuugiya David waxa dhexmaray dagaal balse isla markiiba waa uu ka soo cararay Amalay waxay muraayada ku qortay yaawiya David markan waxa uu u dhiibay kaarka Amalay waxaanay gelisay ATM-ka sidoo kale waxay weydiisay biinka kaarkiisa Koray ayaa u sheegay inay mar dhow imanayaan booliiska halka David uu ku yiri miyaad la hadashay balse waxay isweydiiyeen sababta ninkan tuuga ah uu soo dabagalay goobtana waxa soo gaaray booliiska waxaanay u muuqataa inay naftooda badbaadayso David saaxiibkiis iyo Amalay halka ninkii tuuga ahaa ee rakaatada ku hayay lagu dilay goobta balse waxa soo weeraray David iyo saaxiibkiis qof isla markiiba nafta ay ka jareen wali kooxdan cadowgooda dhabta ah waxa uu taagan yahay goobta balse nin ayay dileen David waxa uu ka bixiyay koodkii uu gashnaa waxaana uu siiyay saaxiibkiis goobtana marba marka ka sii dambaysa way sii qaboobaanaysaa intaas kadib David wuxuu isku dayay inuu eedeeyo saaxiib soo ku leh eray xanaaq ah halka ay ugu dambeyn is-afdhaafeen iskuna gacan qaadeen intaas kadib David ayaa niyadii saaxiibkiis ugu dambeyn uu ka soo baxay ATM-ka gudihiisa waxaana uu si xun ugu dhacay dhulka David ayaa isku dayay inuu badbaadiyo laakiin Amalay ayaa gacanta ku dhagtay
waxaanay ka celisay inuu aado dibadda, balse ugu dambeyntii wuu yeelay. welina waxay ku jiraan ATM-ka dhexdiisa. David ayaa ka raaligeliyey waxa dhacay, balse Amaley ayaa soo xusutay markii uu u yeedhayay ee ay raacisay gaariga taksiga, halka ay Amaley u sheegtay inaysan u baahnayn inaad iraaligelisaa. kadib waxay maqleen cod, waxaana si kadis ah David iyo Amaley ku ogaadeen inuu weli nool yahay Cory, balse waxay ka wada baxsadeen ATM-ka dhexdiisa si ay caawimaad ugu fidiyaan Cory. balse waxaa weli daba jooga nin wata dhar madow oo u muuqda inuu dilayo, waxaana ATM-ka dhexdiisa ugu soo galay biyo, nalkana wuu ka damay, balse David dalka waxa uu ku shidayaa qarxad. intaas kadib David ayaa soo qaaday warqado si uu nalka ugu daaro, goobtana biyuhu way ku soo bateen ilaa uu Cory biyaha dhex galay. intaas kadib Amaley ayaa ku tiri idib markayga, wuuna u dhiibay, waxaana arkaysaa inay nalka ay ku daarayso dab. David wuxuu bilaabay inuu aad ugu qayliyo biyaha, waxaanay ugu dambeyn labadoodu ay ku dhexdhaceen biyaha. Amaley waxay ku soxday biyaha dhexdooda. David markan waxa uu rabaa inuu banaanka caawimaad ka helo, balse ninkii tuugga ahaa ayaa fadhiya banaanka, waxaana uu ku soo tuuray dab si uu ugu gubto. balse intaas kadib waxaa goobta soo gaadhay booliskii, waxaana la xiray David isagoo loo malaynayo inuu jabsanayo ATM-ka, waxaana lagu qaaday baabuur. balse ugu dambeyntii waxa uu booliska u furay inay daawadaan CC kaamarada. filimkan waxaa la sii daayay 2012, waxaana lagu magacaabaa ATM. insha Allah waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga.